waxaan ummadda muslimiinta dadka reer Somaliland iyo reer Hargeysaba u sheegaynaa in gebi ahaanba lagu guuleystay in la bakhtiyo dabkii ka kacay suuqa Waaheen ee bilowday 8:10 habeen hore xalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland isagoo qiimeynaya xaaladda iyo masiibada weyn ee halkan ka dhacday wuxuu magacaabay guddi heer qaran oo ka kooban wasaaradaha dawladda maamulka gobolka Maroodijeex dawladda hoose ee Hargeysa iyo rugta ganacsiga waxaanay guddidani hogaamin doontaa howlaha taakulaynta gurmadka masiibada ka dhacday suuqa Waaheen sida ay sheegtay xog ururin hordhaca dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay oo ay u dhaxayso 1 bilyan iyo badh ilaa 2 bilyan oo dollar waana qiimeyn hordhaca weeye guddida heer qaran ee taakulaynta suuqa Waaheen waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban ganacsatada iyo culimada Jamhuuriyadda Somaliland oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale waxaa la go'aamiyey in maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo isaguna yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn waxaa la go'aamiyey in maalinta Salaasada oo ku beegan 5 bisha Afraad 2022 suuqan dhibta badan ee ka dhacday la nadiifiyo xalliyaale wixii dabku uu ka tagayna laga qaado wadooyinkana la furo waxaa labada cisho loo bixiyey si dadkii dhibtu u gaadhay hadiiba waxaan meeshan ku hadheen inay labada cisho ka urursadaan sidoo kalena caagga iyo marada gubatay ee weli looga sii shaksan yahay inuu dabki jiro markaas loo hubiyo 6 waxaa la sameeyey dhammaan akoontiyadii lagu soo ururin lahaa lacagaha ama deeqaha masiibadan suuqa Waaheen ka dhacda dadku marka ay ku soo bixiyaan waxaana la isla gartay wixii qaadhaan ee ka imanaya wadamada aynu saaxiibka nahay caalamka islaamka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa European Unionka iyo hay'adaha caalamiga ah waxay qaadhaankooda ku soo hagaajinayaan guddiga heer qaran ee taakulaynta suuqa Waaheen waxaana markaa akoonnadaasi ay noqon doonaan oo lala wadaagi doono banka Somaliland 1830 waa akoontka doolarka ah ee hay'adahaasi ama ciidahaasi ay ku soo hagaajin karaan akoonka Somaliland shilinka ina waxa weeye 1830 oo Somaliland shilinka markaa isagana lagu soo hagaajin karo wixii tabarucaad ee ka imanaya ganacsatada iyo shacabka reer Somaliland iyo shacabka geeska Afrika ku nool iyo shacabka kale muslimiinta ah qof aliyaalo qofkii ganacsada wixii ka imanaya qaadhaan ka imanaya iyaga waxa lagu soo hagaajinayaa oo guddiga ganacsatada iyo culimada ee gurmadka masiibada suuqa Waaheen iyagana sidoo kale waxa akoonnadooda ay noqonayaan qaadhanada lagu soo hagaajinayaa banka Somaliland account number 1830 oo ka doolarka ah iyo account number 1830 oo isaguna ah markaa ka Somaliland shilinka lagu ururinayo bangiga Dahabshiil wuxuu noqonayaa Hargeysa
isa d ama HRGD 9439 eber dahabkuna wuxuu noqonayaa eber 6577 eber 4919 bangiga Salama Bank wuxuu noqonayaa 611141 eber 44 oo saadkiisuna uu noqonayo 766111 ama 41 Amal Bank isaguna wuxuu noqonayaa 1 eber 1 4 4 4 1 3 3 1 Premier Bank isaguna wuxuu noqonayaa accountkiisu 1 eber eber 7 eber 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 8 2 eber eber 1 akoonnadaas oo si weyn loo shaacin doono lagu celcelin doono baraha bulshada la soo gelin doono ayaa iyaguna markaa hadalka kale waa la wada xasanaya haddii ba adkaato aan sheegaya intaasaan aniguna odhan